وأنيقو walaalkiina Amiin Xasan ah idin la ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga hadad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo taagtid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda maanta waxaan jeclaystay in la wadaago qiso yar oo cajiib ah qisadaas oo ah waxay dhaxmartay oday iyo labadiisa gabdhood marka labada gabdhood way weynaadeen waxa la gaaray xilligii la guursan lahaa gabdhahaas gabartabeen ayaa waxa soo doontay nin ka shaqeeyo beeraha yaani beerta ayuu ka shaqeeyaa sidoo kale waa loo guuriyay sidoo kalena waxa la soo doontay gabarta yareed maalmo kadib ayadana waxa soo doontay nin ka shaqeeyo yaani ama uu sameeyo burjikadii idintii ama debqaad sa u taqaanid iyo aashunta biyaha lagu shubo yaani in fact wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu sameeyaa alaabahan cargaduudka lagu sameeyo asigana waa lagu daray gabartii marka sanad kadib odaygii wuxuu jeclaystay inuu soo booqado gabdhihiisa si uu ogaado xaalad ay ku sugan yihiin marka hore wuxuu aaday gabartawen markuu aaday si fiican ayaa loo soo dhaweeyay waa la wanaajiyay waa la ixtiraamay aadi 3 maalin to 2 maalin ayuu joogay kadib wuxuu dhahay gabarteedii waa sii baxaya ee maxaa jeceshahay aan ku sameeyaa marka waxay dhahday aabo miya aniga waxa u baahanahay waa ducadaadii waayo ninkeegi deen ayuu meel ka soo qaatay wuxuuna gatay dhul aad u weyn waxaanu soo gatay sidoo kale waxyaalaha lagu abuuri lahaa ama lagu beeri lahaa dhulkaasi waana ku beernay bas hadda waxaan ka rabnaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo barisid inuu roob noo da'o yaani inuu roob da'o marka hay ayuu dhahay waxaan ku dartay yaani waxaad ogaataa hadii roob da'o waxaan ku sugannahay nimco aad u weyn hay ayuu dhahay oo socday wuxuuna maray gabartii yareed ayadana sidoo kale si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay kadibna waxa la gaaray waqtigii baxi lahaa ama xaafadiisa u laaban lahaa intuusan baxin wuxuu dhahay yaani maxaa jeceshahay aan ku sameeyaa sidoo kalena ayadana waxay dhahday aabo miya aniga waxaan rabaa ducadaadii waayo ninkeyga wuxuu soo gatay caradii yaani argaduudkii oo waxyaalaha uu ku sameeyo عرض تيرو بدن أيو سوقتي وحنا يعني كريستي دت فر بدن علابيه إن لو سميه علابتي ولا سميه مركل العكسي وو بحيي دت كي شغالها أو علابته سميان وسيي هذا علابتي أو ذا أيان دجنين مركا وحنا ربنا إن إله سبحانه وتعالى نو بريسيد إنه سنروب كينين واي هدو إله سبحانه وتعالى روب كينو وحط أوجاتا إن خسارة وين أن كسوجن نهاي adiga idaawanaya hadad ku jira lahayd booska aabahaas ku jiro yaa u duceyn lahayd waayo haduu u duceeyo gabartabeen waxa qasaareyso midda yar hadii loo duceeyona waxa qasaareyso midda weyn adiga idaawanaya yaan u duceey lahayd odagii asigoo yaaban ayuu meesha ka tagay caafada ayuu aaday wuxuuna watay alaab yaani hadiyad oo uu soo qaatay gabdhahaas uu siiyo hooyadooda marka hooyadii markii hadiyada loo geeyay waxay dhahay hadiyada ha ii dambeysay ee iga waran xaaladda gabdhaheeda ku jiraan marka wuxuu dhahay hadii roob da'o alxamdulillah dheh haduusan da'ina alxamdulillah dheh maamadii ayaa yaabtay markaas waxay ku dhahday yaani maxaad ka wadaa markaas wuxuu dhahay gabartaada weyn drop ay u baahan tahay gabartaada yarna orax ay u baahan tahay soo marka waxa anaga aan sameey karno waqti xaadirka ma jiraan except yaani inaan alxamdulillah aan iraano xaalad walba na soo asiibto qisadan laba shay ayayna baraysaa midda koowaad waa inaad ku sabartaa wax walba oo ku soo asiibtaa waa inaad horta yaani wax walba ku saabsanta in alxamdulillah aad noloshaada abartaa inaan dhexdii midda labaadna waxay tahay yaani waxa adiga ku soo asiiba oo khayr ah qof ayaa shar u ahaan kara waxa adiga shar ku asiiba qof ayaa khayr u ahaan kara marka ogow yaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo kale wuxuu leeyahay waxa idinka aad shar u maleesan khayr ayaa idin tahay waxa idinka khayr u maleesanna shar ayaa idin tahay idinka ma ogtiin laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala asiga og marka aan isku dayno xaalad walba inoo soo asiibto inaan yaani aan badino inaan dhahno alxamdulillah ala kulli hal daiman abadan inta aan ku wada kulmi doono muuqaal kale oo sidaan ah waxa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo